Munaasabadan oo lagu maamuusayo xuska maalinta caalamiga ah ee 8 Maaj oo ah maalinta xuska haweenka adduunka ayay magaalada Dhuusamareeb uga qayb galeen wasiirro ka tirsan Galmudug sida wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha Galmudug Ubax Xuseen Dhiblaawe wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Galmudug xildhibaano hoggaanka ururada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Dhuusamareeb iyadoona lagu soo bandhigay caqabadaha iyo fursadaha hor yaalla haweenka Galmudug Dahabo Aadan Maxamuud gudoomiyaha ururka haweenka caasimadda iyo qaar ka mid ah haweenka ka qayb galay munaasabadan ayaa goobta ugu horeyn ka hadlay waxaan nahay haween laf dhabarta bulshada nahay hooyo ayaan nahay barbaariyaal ayaan nahay waxaan nahay sidayaal ayaan nahay waxa weeyaan hooyadu waxa weeyaan waxay leedahay mudnaan gooni ah leedahay ilaahay baa quraankiisa ku sheegay ma ahan inaan anagu samaysanay maalintan la yiraahdo maalinta haweenka la yiraahdo laakiin ilaahay quraankiisa noogu sheegay in aan maxay leenahay ixtiraam gooni ah inaan ku leenahay bulshada dhexdeeda marka waxa weeyaan waxaan rabaa inaan meeshan ka soo jeediyo dhammaan haweenka meel kasta oo ay joogaan Soomaaliyeed inay isku filnaadaan isku badnaadaan wadamada waxa ka jira colaada ka jirto abaara ka jirto colaada ka jirto waxa loo baahan yahay in loo diyaar garoobo sidii looga maxay bixi lahaay haweenku inay nabadda ka shaqeeyaan gabdhaha joogo caawa xafladatan quruxda badan waxaan kula dardaarmayaa in ay hirgeliyaan in ay bartaan ay aqoonta iyo xoogga saaraan maadaama gudoomiyaheena waxbarashada hore uga hadashay haddana in ay gabdhuhu xoogga saaraan tiknoolajiyada haddii aan nahay gabdhaha Soomaaliyeed waa ku dambeynaa dhinaca tiknoolajiyada maadaama adduunkii maanta laga isticmaalayo tiknoolajiyo haddii ay tahay caafimaad haddii ay tahay shaqo dawladeed haddii ay tahay xafiis intaba runtii caawa habeen weyn anagu kumana ekin 8 Maaj kuma ekin maalin walba leena waayo hooyo qiimaheed waan ognahay hooyo waa barbaariso waa koriso waa macallimad waa qofka maanta adduunkan uu ku tiirsan yahay hooyo hadaysan jirin cidna ma aflaxdeen meel lama gaarin inteenana isku maanan imaanin hal door lama arkeen haliyay lama arkeen aqoonyahan lama arkeen madaxweyne lama arkeen wasiir lama arkeen xildhibaan lama arkeen xildhibaan Cali Maxamed Cosoble iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa dul istaagay muhiimadda ay leedahay xusuusashada maalintan iyagoona dardaaran guud u jeediyay haweenka Soomaaliyeed xaqiiqo waxaan leenahay haween karti leh oo qiimo badan laakiin aan fursad haysan aniga waxaan ku hadlayaa codka baarlamaanka qof walba waxa la rabaa meeshuu ka soo jeedo inuu wixii uu qaban kariyo wuxuu qabtay sheego aniga ana codka gabdhaha iyo kii baarlamaanka inteena taabacsanba ku hadlayo xildhibaan Khalid oo igala jooga xildhibaanadeena waxaan meel marinay sharci aad ku heli kartiin 70% bulshada tiine iyo laf dhabarkii dalka iyo dadka sharci qof iyo hal cod iyo qof ah si aad u heshiin koofi subagla wuxuu idin diidi jiray waa ka xoroobaysaan ina garab nagu siisaan la rabaa annagana waa meel marino sharciga madaxweynahana wuu saxiixay gabdhuhu xasiyaan gabdhaha waxaan oran lahaa xoogaa sanadkan tiknoolajiyada loo gudbay waad ku yeertiin tiknoolajiyada waliba IT-ga ugu yeertiin ma bartaan gabdhuhu kuma badna aad ugu ma badna oo ragga hadda bahasha isku laaya tiknoolajiyad baa loo gudbay waa laga gudbay waaga qalinka iyo wax la isku haystay hadda tiknoolajiyada u gudba wax canab sheegtay maxay tiri koofidi maxay tiri canab alaabtaas raggayga u khiyaartayda u jeedaaye alaabtii waa laga gudbo qof iyo cod baan anagu ansixina gabadhu halkaas ay dhiganaysaa santuuqeeda xaniyaheeda in la imaanaysaa Ubax Xuseen Dhiblaawe wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha Galmudug oo soo xirtay xafladan ayaa sidan ka sheegtay madasha aniga hadaan Galmudug mataqaanaa dawladda ka tirsanahay oo hogaaminayo madaxweyne Cabdikaariin Qorqor waxyaabo badan ka gaartay dhinaca haweenka waxyaabo badan ka gaartay dhinaca haweenka saa ogtihiinba
gobolka kaliya ama maamul goboleedka kaliya oo boqolkiiba 30 ay ku qoran tahay dastuurkiisa waa galmudug gobolada kale kuma qorno xataa Puntland meel kasta ka soo qaad kuma qorno taasna waxa keentay dadaalka ay nageliyeen mataqaanaa xildhibaanadeena iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaheena marka waxyaabo badan oo shaqooyinaha socdo waxa kamid ah sida xildhibaan Canab ay sheegtay sharciga qof iyo cod insha Allah hadda wax fogo iga laakiin wax soo socdo in isku diyaarisiin la idin ka rabo gabdhaha aad ku dooratiin hadii alla idmo dhinaca shuruucda kale oo mataqaanaa ku saabsan haday tahay maaliyad iyo haday tahay doorashooyin iyo haday tahay mataqaanaa shaqo iyo shaqaale haday tahay wasaaradda arrimaha gudaha dhinaca mataqaanaa maamulka dejinta iyo samayskooda shuruuc badan oo ilaa 17 sharci ah oo haweenka taabanayo ala sameeyay haddana anaga ka wasaarad ahaan insha Allah sanadkan waxaan rabnaa sharciga gudniinka inaan gudbino oo waxa gudniin la dhaha dhanba laga jaro gobolkan aan deganahay hadii alla idmo wax faa'iido u leeyahay ma jirto gabdhaha masaakiinta maalin kasta dhiig wax u dhintaan Yuusuf Beerad warbaahinta Shabeelle